waxaynu warbixintan ku eegi doonaa taariikh nololeedka iyo waayo aragnimada shaqo ee madaxweynaha la doortay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha la doortay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa sanadkii 1955. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro waxa uu waxbarashadiisii hoose iyo tan dhexe uu ku dhamaystay magaalooyinka Burco, Berbera iyo Hargeysa, waxaana uu wareegay dugsigii sare ee caanka ahaa ee magaalada Sheekh oo uu dhamaystay sanadkii 1977. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha la doortay muddadii u dhaxaysay 1978 ilaa 1981 waxa uu ka soo shaqeeyay hay'adda la oran jiray horumarinta danwadaagaha ee Muqdisho. 1981 ilaa 1988 waxa uu ahaa diblomaasiga xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, gaar ahaan waaxda iskaashiga ee dhaqaalaha. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha la doortay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland bishii May 1988 ilaa 1996 waxa uu ahaa ku-xigeenka danjiraha iyo siihayaha safaaraddii Soomaaliya ee dalka Ruushka ee Moscow. waxa uu markaasi kadib u guuray Cabdiraxmaan Ciro dalka Finland oo uu joogay ilaa 1999 oo uu ku soo laabtay Soomaaliland. sanadii 2000 Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha la doortay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka mid noqday aasaasiyaashii xisbiga mucaaridka ah ee UCID oo uu ku-xigeenka xogayaha guud ka soo noqday. doorashadii baarlamaanka ee Soomaaliland ee Sebtembar 2005 ayuu Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha la doortay uu ka mid noqday xubnihii laga soo doortay gobolka Saaxil ee Berbera. kadibna waxa ay golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland u doorteen Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro gudoomiyaha baarlamaanka oo hayay 12 sanadood ilaa August 2017 oo iska casilay. sanadii 2011 Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha la doortay waxa uu aasaasay xisbiga mucaaridka ah ee wadani kadib markii ay isku dhaceen oo maxkamad isla galeen gudoomiyaha xisbiga UCID Injineer Faysal Cali Waraabe. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha la doortay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku hadlaa luqadaha Ingiriisiga, Carabiga, Russian iyo Finnish, waxaanu ka haystaa shahaadada master ee MBA maamulka ee kulliyadda SIDM iyo dibloma oo ah xalinta khilaafaadka ee jaamacadda Hargeysa. doorashadii madaxtinimada ee dalka ka dhacday 2017 ayuu u tartamay, hase yeeshee uu ku guul daraystay. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha la doortay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu leeyahay hal xaas iyo 5 carruur oo dhammaantoodba wiilala.